إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa maanta degmada Saylac ku geeriyooday Sheekh Maxamuud Awaadir iyadoona Sheekh Maxamuud Awaadir Ilaahay naxariistii jannaha siiyay si weyn looga yaqaanay gobolka Salal gaar ahaan magaalada Saylac. Sheekh Maxamuud Awaadir oo bulshada ku daweyn jiray Qur'aanka Kariimka ee isla markaasina kamid ahaa culimada sida weyn caanka uga ah gobolada Awdal iyo Salal gaar ahaan gobolkan Salal waxaana la duugay xilli habeenimo ee naxariistii jannaha siiyay Sheekh Maxamuud Awaadir ayaa waxa aaskiisa ka soo qayb galay madaxda kala duwan ee degmada Saylac barasaabka gobolka Salal barasaabka xigeenka gobolka Salal iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan qaar kamid ah haldoorka gobolada Awdal iyo Salal iyaguna dhamaantoodba eeba uga baryay inuu naxariistii janno siiyo waxaana hadalladooda kamid ah sida tan iclaan binaga noo bixinaya iclaanka waxa la ogeysiis baa la yiraahdaa hebel waan qaaday aad u diyaar ma tahay baa lagu leeyahay sidaa darteed waxa la naga doonayaa walaalayaal dhamaanteen waan soconaa halkan baan ku soo wada hooyanaynaa aakhiraan u soconaa waxa la naga doonayaa inaan camaashayna hagaajino ilaahay waxa la hortagayna in la diyaar galowno adduunyadu ninna wehelu maaha adduunyadan arkeenna hadduu daare leeyahay hadduu aqali leeyahay ninna wehelu maaha wehelku waa camaasha weeyaan camalka qofku qabriga la galayo baa wehelu noqonaya reerkiisa iyo qoladiisa iyo dawladdiisa iyo xukunkiisa iyo darajadiisa midna wehelu noqon mayso ma noqonaysa xagan buu kaga tagayaa wuxuu ahaan jiray hadduu direkteeraha hadduu wasiiraha hadduu magaclaha hadduu suldaanaha hadduu caaqilaha waxba ka raaci maayaan maxaan raacaya camalkiisi baa raacaya camalkeena la doonaya inaan ku dadaalno inagu walaalkeen waan aasnay khayr badan baan ku ognahay oo dadku waxay ka waramayaan 2 qof 5 qof haddii hadashaa leeyahay qofka khayr ku sheegta khayr ban nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu antum khalifatu fil ardi bur nabi waxa tiin inagu khalifadii arlada tihiin buuri sayid ku tihiin qofka khayr ku sheegtiin khayr buu leeyahay qofka shar ku sheegtiina shar baa jiray bur nabi kaleey salaatu wasalaam walaalkeen khayr badan baa lagu sheegay Allah ka aqbalo inagana waxa la naga doonayaa walaalayaal bayaan dheer maaha xabal baan dul joognaa halkaas aan wada iman doona aqalladeennu waa halka weeyaan nolosheennu halka weeyaan adduunyadii waan ka faaruqi doonaa adduunyo kale aan gali doonaa acmaasheennaasi wehelkeedu waxa weeyaan waa inaan ku dadaalo waa yoomiyaha weeyaan maalin walba inaan camalka yoomiyaha inaan ilaahay u dhiibana subxaanahu wa ta'ala wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam idaa asbaha ibn aadam markuu waa bariisto eed u soo baxdo carabka ayay xubnuhu ku kalahan markaas waxa ka yiraahdeen ilaahay nooga cabso anaga darta ilaahay dirta nooga cabso ittaqillaha fiina ilaahay nooga cabso carabo hadaad xumaatidna waan xumaanayna hadii aad wanaagsanatidna waan wanaagsanaanayna marka wax weyn walaalayaal aan sahaydeenu waa acmaasho weeyaan waa salaada weyn waa cibaadada weyn alla ka cabsiga weeyaan wixii ilaahay raali gelinayna aan qabanno wixii ilaahay cad gelinayna ka fogaano macaasidu maaha qofku inuu sinaysto kaliya maaha macaasidu waxa weeyaan waa adigoo carabka wax walba kaga hadla adigoo salaadiyo halka la tukanayo halkaas ka fadhiya macaasiba la jamiicil isyaan baa la macaasida wixii ilaahay cad gelinayo dhanba salaadiyo lagu jira hadad ka tagtudo soo macaasi soo maaha halkaas salaad tiyo la soomay adiguna iska cuntid marka wixii ilaahay cad gelinaya aan ka fogaano wixii ilaahay raali gelinaya aan magaranaysa aan qabanno maalin walba aan qabanno nolosheena nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam qofku markuu 5 waqti xafido ilaahay 5 nuur buu ilaahay siiya ilaahay wajiga nuur buu galiya qabriga nuur buu galiya maanta jidka siraad markuu tala nuur buu galiya maasharka nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri dadkii salaada tukanayeen buu nabigu helaya waxaan salaada tukanin helay maayo nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri nabigu waxaan jeclaan lahaa inaan walaalaha yarko walaalaha waa ku anagu alastu ikhwaanuka ya rasuulullah qala antu asxaabi inuu asxaabtaydii batina walaalahay waa kuwa iman doona buu nabigu kaleey salaatu wasalaam sidaad ku garan doontaa baa laga yiri nabigu wuxuu yiri xadiisku u dheeraa meeshay weysada marinayeen baan ku garan doonaa buu iftiin baa ka bixi timihii baa iftiimaya gacmihii baa iftiimaya lugihii baa iftiimaya wajigii baa iftiimaya iftiin baan ku garan doonaa markaas aan soo dadka ka soo sooci doonaa buu kii salaad laanta tukada ma nabiga ma arkaya marka walaalayaal camaasha ku dadaalna ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo dhib yareeyo walaalkiina Allah u naxariisto sheekha inoo ducayn doona anigoo ah maxamed cumar hiraash suldaan qanciye waxaan qirayaa sheekh maxamuud Awaadir inuu mu'min ahaa ummadda dadweynaha faraha badan ee degmada Saylac ku nool aad iyo aad bay u sheegeen inuu inta dambana quraanka joogto ku ahaa sheekhu caawa oo gabadheedii la soo hadashay waxaan ku yiri sheekhii ugu weynaa reeraha ayaa ku dhintay oo geerisii joognaa
waa kuwa sheekh maxamuud abaadir baa iyay tiri ayaan ku yidhi waxay tiri mu'min buu ahaa marka waxa weeyaan saddex qof oo isoogoyn qofka waxay ku sheegaana waa ilaahay baa qiray inay tahay mutafaq calayha sheekha alla qabriga ha u nuuro jannadana albaabada ha u ballaqo dadkii uu ka geeriyooday iyo inaga dhammaanba iyo reer saylac oo dhanba samir iyo iibaanna ilaahay naga siiyo maghfir li hayyina wa maytana wa saghirana wa kabirana wa shahidana wa ghaibana اللهم من أحييته منا فأحييته على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيته على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده على سيدنا مولانا محمد وحا dhammaanteen samri iimaan allah inaga siiyo walaalkan maxamuud abaadir oon cabaashiisa aaskiisa iminka ka dareerayno dhammaanteen iimaanka allah inooga reebo dhammaan ubadkiisii iyo bulshooyintii uu ka tagayba waxaan leenahay samri iimaan allah inaga siiyo isagana naxariistii janna allah ka waraabiyo xaaji maxamuud abaadir allah ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto inagana samri iimaan ilaahay ha inaga siiyo ilaaha weyne waaxidii jannooyinkiisa ha ugu deeqo ilaahow janna firdawsa gee dhammaan eheladii iyo walaalihii ka dhintay waxaanu leenahay samri iimaan waana nu ducaynaynaa ilaahay naxariistiisii jannaha ku manaysto ilaahay naxariistii jannaha ku manaysto ilaahay jannatul firdawsa ha geeyo taasi dhamaan u direynaa qaraabadii iyo ehelkii ku geeriyooday adeerkeen maxamuud abaadir shirwac ilaahay xajna Allah ka waraabiyo ilaahay xajna Allah ka waraabiyo dambigeedii wadada la dhaafo dhammaan jumhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Salal gaar ahaan degmada Saylac iyo reer maxamuud abaadir shirwac waxaan halkan ka tacsiinaynaa geerida ku timid xaaji maxamuud abaadir shirwac markaa waxaan leenahay ilma abaadir iyo dhammaan reer shirwac oo dhan samriye iimaan waa Cali Axmed Yiriye ala dhaga dalal wararka degmada Saylac